وحاكلو كميدا قصص كعجائب كلا كميدا قصة بلال قبصتي يصوبنا عبد الله بن لحي الهوزني تابعي لأورنجري يوحو الله يا المسلمين حالتها يصوم مرين يا النبي قابك أصوم مامولي يا صحابته هوشة سيقصوا قدبين فقري يا باهدي يا دباتي الله صوم مري يا ما أنت وناك جرة مركز تابعي وحو إسجيري بلال مركز سوريا مال كميدو هذا حلب ليلى هذا إمام والي غوبرناتور كأها أيو أتقي حلو وحان دونا يا نفقات يا بيلك يا قابك النبي وحو مامول جري نقاله iyo iqtisaadku nabigu wax ku maamuli jireen wax iga sheegto bilaal wuu qoslo wuxuu warnabe maxamed wax dhaqaalaha muusan gobannimo iyo xilkasnimo ayuu wax ku hayay mooyeen hantu ummad ku maamulo muusan hayn nabigu maalinka la soo saaray ilaa maalinku geeriyooday ana ahaabu wasiirkii maaliyadda khasnajiga nabiga xogeeyihii ana ahaabu hal qisaan ku sheegay taa ku cibra qaada buu wixna qabsaday in soo maray qisada maxay tahay wuxuu yiri markii aan Madiina nimid aan soo hijroonay baahi badan baa iska jirtay muslimiintuna si habqan ay u imanayeen Madiino barakac badan baa jiray reemi barakacayo abaara ku dhaceen baa jiro muslimiin aha muhaajiriin cusub dal tabyooday baa jiray Madiina la qabsan waay ansaar iyo gob ah hadana muslimiintu socday ka badna nabi wuxuu yiri bilaal waxaad yeeshaa wixii aan haynay xoolo aad aragtana ruuxi muslimid aragtay baahan ku arad bixi soo dhawee midaad sooriyeyso iyo midaad arad bixisa ka dhig haddad wax weydo dayn inoo soo qaad markaan waxeelaan iska bixinaynaa waxa loo dayn qaadan ee bilaal iyo subanu deymaha ay isu saarhayaan naftooda iyo dantooda mee waa dan muslimiin wuxuu waagi dambe ayaan suuqan tagaa ganacsatadii gaala iyo muslimba wixii jooga Madiina intaan islaamku baahin bay ahaydeen ayaan dayn weydiisan jiray dayn baan soo qaada muslim baan ku arad bixiya asxaabu sufan raashin oo kariya hawshaasaan waday buu waagi dambe nin yahuudi ah ama mushrik ah oo Madiina maal qabeen aha ayaa ii yeeray buu wuxuu yiri bilaal waxaan ku arkaa maalin walba adoo suuqa wareegahayo la daynyaa isiiya ee waxaad yeeshaa maalinka dayn u baahato iimow aniga ana ku siinayay ninku yiri niyo waanu deeq ku siin mahaye maalinka dayn u baahata albaabka soo istaaga kugu taagahayay waxa aad bad ugu farxi waana soo dhaweyn wax siismaha ayada mararka qaarkood ka qiimo badan daynaad u baahan tahay ninka ku siiya ayaa mararka qaarkood deeqda ka wanaagsan marka aad baan ugu farxo waxaan yiri laakiin nabigaan la soo tashanay aan kugu soo celiyo nabigaan ku soo noqday nabi allow waad oga dibkiina haystay dayn baan inta raadin jiray nin baa maanta wuxuu yiri marka dayn u baahatay ima waa ku siinaya waxay doonayaan aan noqotay ee ninka bal ka war nabigu wuxuu yiri waa gobannime waa faraj ilaahay inaga soo qaad waan iska bixinaynaa deynti baan iska qaadan jiray buu oo muslimiintu ku waxsin deynti markay badatay mudayna lahayd muddada ay soo dhawdahay 5 maalmood ka hadhay ya bilaal wuxuu dhaanoo intaan weysiisay duhurkii hortii doonaya marka duhurka laga inaan aadaamo oo muslimiintu salaada ugu yeero muslimiintii buu wasiir iclaam u yahay xagga warbaahinta asaga u jooga salaadihi asaga ugu yeeri asaga aqimi xaqi maamulkii maalkii dibkoodana bilaal buu saaran yahay nabigana asaga gacanta ku haya hawshiisa dhaqaale salawaatu rabbi wa salaam alayhi anoo taagan buu weysiistay baa ninkii deynta nasiin jiray gaalka aha iyo niman ganacsato la socda igu soo baxay markaasuu yiri yaa xabashi bilaal magaciyo qoyskiisa u tiirinaya wuxuu ninkaadan xabashigohu ma ogtahay buu waxa ka xiga muddadii inma duunaka 4 layaal afar habeen baa ka xigtay xilligii ballanta wuxuu xooleen ku siinay ee deyn ahayd deeqiga ma ahayn buuri xurmayn adiga aan ku xurmayna igama ahayn buuri saaxiibka muhammadna salawaatu rabbi wa salaam alayhi jacaylan ma ahayn waxaan doonayay buuri deyntu inta isgargaadho oo badato oo iska bixin weydo inaan fooda ka gooyon ku adoonsadan kugu celiyo waxaad ahaan jirtay buuri bilaal adoonnimo soo maro waad garanaysaan oo waxa xoreeyay abubakar baa iibi waad garanaysaa waagana waxa jira dhaqan aan wali la nasakhino ninkii deyn intii lagu yeeshay iska bixin waaya waa la adoonsan jiray fooda horaatimaha laga goyn waana calaamad inaad adoon tahay hadii dagaal lagu qabto fooda laga goyn hadii lagu muqunsho laga tabarbato fooda laga goyn hada deyn iska bixin weydo fooda laga jiray kadibna qowsaar baad noqon xoolo adoon baad noqonaysa abdullah taabici wuxuu yiri bilaal markuu sidaa ku yiri maxaa dareentay nin xor ah oo muslimiin u aadaamahayo oo dawlad maamulahayo
oo la yidhi waxaan rabaa 4 bari kadib wixii ka dambeeya inaan ku adoonsado oo ariga ii raacdo maxaa dareentay buuri nin raga wuxuu dareemay lahaa baan dareemay laakiin nin deyn kugu leh dow buu kugu leeyahay waa iskaga aamusay waxaan idhi balbalanta hal la gaaro oo iska tag bilaal gobannimadiisu u fiirso dhibka yar ninku la soo koro inagu hadda uu mataqi uu cala cali uu wala hoobi meelahaas urdi nafta ka bixi dhiig kar baaba ku dhiciye muxuu ahaa sonkor iyo stress baa ku dhacay bilaal waa iska aamusay duurkii buu aadaamay waa la tukaday nabiga kama nixinin casarkii buu aadaamay waa la nabiga lama hadlin maqribkii baa la gaadhay waa la tukaday asaga aadaamay nabiga ooma sheegin sirta iyo gobannimada iyo dulqaadka iyo gegsiga bilaal ka muuqda waa inaad lagu daydaa la doonayay cishihii markii la tukaday oo dadka kala dareereen oo nabigu gurigiisii uu tagay buu keligii ka daba tagay nabigu salaamay nabi allah mu soo galahaa soo gal bilaal baa fadhiistay nabi allah wuxuu yidhi maanta xoogow yaroon kaa qariyay baa dhacay haye ninkii gaalkaabaa maanta ii yimid wuxuu leeyahay 4 bari wixii ka dambeeya waa ku adoonsanhaya maxaa tala ah bilaal wuxuu nabi allah inaadan hantida haynin waan ogahay ilaa asagaaba khasnaji ah dhibka dhanba nin ku dhaca asaga ah wax shilin oo ka qorson ma jiro nabi allah inaad heli karaan hantida ayada ah baan ogahay aniguna ma hayo xeradeedana kuma jirto xero toranda kuma ogoy buur adna ma haysid ninkan gaalkaana wuxuu doonayaa inuu ceebayo fadeexeeyo nabi allah waxaad yeeshaa waan carir waan baxsane oo dadka muslimiinta miyiga degan baan ka caan cabbe ku dhuumane inta ilaahay faraj ka keenahay muadin kaloo sii aadama sii samaysabo wax kala ma ah wuxuu rabaa inuu intuu madax laabo nabigana muadin u sii aadaama ilaahay faraj buu keeni doonaa waa ku kalsoon yahay ninkan inuu ceebayo foodo gooyo adoonsada aminkan geel raaciyo iyo ari buu diidan yahay islaamkiisa iyo jiridiisana uu kaga ciyaaro nabigu wuxuu cabaar bay ga aamusnaa oo nabigu waa walbahaaray marka wuxuu yidhi in shi'ta fa'tamid haddii ay kula qumanaatay waad yeeli kartaa waa runtaa oo ma hayo mana heli karo gaalkanna waad mooddaa inuu ku caabaynayo waad fasaxan tahay bilaal wuxuu yidhi waan iska tegay isla habeenkiiba gurigiisii buu tegay uu iskaabula ku ahaa wuxuu yidhi waxaan diyaarsaday ohligii uu sayda ku qadan lahaa warankiisii seeftiisii gaashaankiisii kabihiisii ubadii biyaha ahayd oo ku safri lahaa wixii buu meel saartay wuu barkaday wuxuu rabaa oogta horin oo dajabiyuu doonaya la habeen lagama hortaga marka la baxaye intuu yar seexdo 8 saac iyo 9 saac meelaha marka la gaaro inuu madiina ka guuru doonaya markuu yaraha seexday yaa wuxuu yiri beel waan kacay nimay kodol ku taagantahay magam oo hurdadu ladii meeysi hurda ka iman mayso xogo hadal laamado waad soo boodi wax yar markaan jiifo waan boodaa buu cirka maan firay xidigii saacad ma jirtee xidigu garanaya waa nin miyu ku soo koray habeenkii inuu wali dhiman yahay waagu uusan dhaweyn buu arkaa uu seexdaa 3 goor markaan ka afariistay oo marka afraad kacay buu ama 10 saac ku qiyaasan taqriiban yu saxaabi ka biya gashaday asagoo alaabti qaano labisanahay inuu baxadoonahay nin ordahaya u yimid xuriya bilaal ajib rasuulullah isla habeenkii baa ilaahay nasri keenay boqor nasraani ahaa oo fadak jooga meel madiina aan ka dheerayn ilaa 50 kilomitir u jirta ayaa muslimiintii soo badan hayay iyo culayskoodii dareemay wuxuu yiri muslimiintan bal hadiye iskaga dir 4 halaad buu intuu soo raray oo raashin iyo dhar iyo alaab iyo maacun ka soo buuxshay buu nabi maxamed loo geeyay hadiye weeye 4 halaad oo raran baa habeenkii soo gashay bilaal lama ogo nabigu markii halahan aday iyo waxa saaran ba waa hadiyo min maliki fadak bur war bilaal gaara bilaal intuusan baxsaneen oo uusan oota jabeenin hala gaaro salaadii fajr ha aadaamay saasaa nabigu u soo diray saxaabiga kale bilaal waxa la ajib rasuulullah markii inta lagu yiri yaa wuxuu yiri bilaal alxamdulillah uu gartay ilaahay faraj inuu keenay nabigu xalay soo kala tageen cishihii waxa uu nabigu fariinta kale u soo ceshay waxba soo kordhay ilaahay baan ku mahadiyay waan tagay buu alaabtii waan dhigtay waan ninkii baan raacay nabiga aroon gaarin baa meesha hadda musalla ciid noqotay masaajidka dushiisa ahayd laakiin nabi maxamed banaankiisa janaa'ista lagu tukan jiray ayaa waxaan maray 4 halaadoo raran oo fadhida oo wali heeriyadii iyo wixii saaraa uu saaray laga dajin oo la furin halii baan sii maray allah hadana ku xamdiyo waan nabigan u tagoon salaamay wuxuu yiri bilaalow ma soo martay geel fadhiya iyo alaab saaran ma soo martay awr wada dhugcaysa oo raran oo buuxda ma soo martay ha nabi allah wuxuu yiri 4 halaad iyo waxa saaran kulli adaa iskale adaa iskale wuxuu garanayaa nabigu wuxuu oga jeedo nabiga ninka la dhaqmaa garanaya waa maxay wardayimii islaamka iyo culayskiina haystay inaga bixi way
wuxuu yidhi halihii baan ka dejiyey heeryadii iyo alaabta meel ka dhigay ayagii baan intaan kaxiyey baan meel ay wax ka daaqaan kusoo seetay kusoo dabdabay waan soo noqday salaadii fajr uu ka cayr lahaa buu aadaamay adaankii koobaad iyo kii labaadba markii la tukaday waagu baryay iyo raashinka iyo maacuuntii alaabtii qaado suuqi baqiic buu geeyey wuxuu dhan buu cadeeyay wuxuu wixii deyn ku lahaa nabi maxamed ama aniga igu lahaa ha yimaado hadduu kaash rabaa kaash baan ku siinaynaa hadduu badeeca rabaa badeecu ku qaadan hawshii suu wada afartii riti waxay saaraa oo dhan 2 diinaar baa ka soo hadhay kulli deyn islaam buu baal ku bixiyay duurkii oo la gaarin baal soo noqday afartii halaadna wuu iibiyey iyaguna wuu kaash gareeyay wuxuu dhan waxa ka soo 2 diinaar nabi maxamed oo keligii masaajidka fadhiya duhurna wali aan la gaarin baan u imid buur waan salaamay suubanaha markaan salaamay yiri bilaal wixii adduunyo dhankaada jiray maxaa ka haray nabi allah 2 diinaar baan ka soo reebayo aan isiri ruux muslima baahan galabta ama tiisa ama ruuxan wareegtada iyo dhawaqa aan maqal oo deyn nugul ama soo baxa 2 diinaar oo indifaac ugu talagalay baan hayaa nabi wuxuu 2 diinaar gabalku intu saddexaad aan bixinin oo ruux muslima aadan siin ama aadan deyn ku bixinin guriga u dhalman mahayo caawa masaajidkan bariyahaya nabigu dhab kasto haysta wuxuu rabaa inuu saxaabadan tarbiyeeyo oo adduunyo waxay tahay baro oo xilkasnimo iyo mas'uuliyad dareensiyo 2 diinaar buu nabigu habeenkii gurigiisa u bariyay masaajidka bilaal wuxuu waan baxay 2 diinaar 2 shilin waxaan u dhibaaban waayay quman buur waan iska hayay nabigu habeenkii meesha uu bariyay masaajidku seexday gurigiisa oo ma dheelmanin maalinkii dambe uu bilaal baxay ruux ka qaatoba waayo 2 diinaar uu siiyo habeenkii labaadna nabigu waa bariyay 2 habeen buu masaajidka nabigu seexday bilaal uu bixin waayay awgeed 2 shilin uu sadaqayn waayay 2 shilin kaliya wixii kale dhan waa bixiyay 2 shilin oo soo hadhay baa bilaal lagu haysta wuxuu yiri bilaal galabkii saddexaad ee nabigu u dheelman lahaa masjidka ayaa waxaan hayay 2 muslimiin oo musaafiriin oo sahaayadu ka gooda oo rafaatan oo indhaha wareejinay oo meel u dhaqaaqaan gabalku haduu dhac garan la masaajidkaad gashaan ma dawarsataan maxaad samaysaan yaa dhawr maxaad ahayda muslimiin baan xagee ka timaadeen meel heblo maxaa dhiba sahaayada baa naga gooda war 2 shilin qaata buu 2 diinaar adoo diinaarkan ho sahaayay bay ku beegteen way ku arad bixay way bixeen buu galabka nimankii markii buu soo orday bilaal nabigu iyo nabi maxamed oo ilaahay mahdi maanta 2 muslim oo dhiban baan 2 diinaar ku taagay nabi wuxuu alxamdulillahi alladhi arahani minha ilaahayga culeyskeeda iga raaxayba mahad iskale 2 diinaar baa nabiga culeys ku haysaba adduunyo subanu halkaas uu ka jooga xadiidka asaga xadiid saxiix ah weey abu daawud buu ku yimaada ibn xibban xadiid sugan weey taabiciga marka bilaal isku majaro wuxuu yiri hada alladhi sa'altani anhu min nafaqati rasuulillah warbiilkii nabi maxamed iyo dhaqaalihiisa iyo awoodi dhaqaaleed ii weydiisay taasa cibraya tusaale kugu filan buu in nabigu 2 habeen uu meel bariyay aniga la adoonsan gaaray dib muslimiin iyo dhaqaale yari awgeed taasa cibra kugu filan waxaan oga jeednaa ilaahay baa inagu in hadda ina barakeeyay nin walba wuxuu maanta ku dhaqaaqo heli kara ninkan heli karin qaraabiyad ahal ku tiirsan yahay dabka la shita laakiin dad inaga daran baa jiro oo meel walba daadsan dadka muslimiinta ha laga warqabo yaan la is dhiganin